الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. nin magaciisa khatiir ku sheegay baa su-aashan hargeysa kasoo qoro waxa uu leeyahay labadii waalid haddii ay si aan xalaal ahayn ilmo ku dhalaan ninkii iyo gabadhii iyagoon isu mehersanayn hadday sidaa ilmo ku dhalaan maadaama iyagiiba cuquuq sameeyeen oo sharciga ay ku xadgudbeen waladkaa isaga ahay waalidku miyuu xaq ku leeyahy waalid hooyadii unbaa u noqonaysa miyuu xaq ku leeyahy buu leeyahy jawaabtu waxa weeye haa. hadday waalidku uu xadgudbay isagu inuu xadgudbo maaha asalkeedaba hadduu qof xaq kugu leeyo isagu xaqiisaa ku xadgudbo adigu kaaga ku xadgudbi maysid ee xaqaagaad samaynaysa oo aada la imanaysa hadday madaxda tahay hadday waalidka tahay hadday sawjka tahay marka qofku waanu waajibkiisa gutaa kan kalena ilaahay baa kala xisaabtamay subxaana wa tacaala. marka waladkaa isagaa waxa waalid u ah aabuhu waalid uma aho abtirsiima ma jirtee hooyadaa waalid u ah waa inuu u samafalaa. su-aashan kale maxamed baa goday kasoo qoro waxa uu leeyahy qofku markuu jinaabaysan yahay ma seexan karaa? jawaabtoo koobani waxa uu yihi haa. nebiguba uu seexday calayhi salaatu wasalaam salaada subax markuu u kacay buu maydhay mararka qaarkoodna isagoo soomanba marka hurdadiina waxba u dhimi mayso mamnuuc ma aha soomkiina qofka isaga oo jinaabaysan hadduu waagu bariyo soomkiina waxba yeeli mayso salaadii subax buu maydhanaya. waxaase iska wanaagsan si uu nashaado iyo firfircoonaan u helo inuu horey ka maydho. su-aashan leylo cabdi baa etoobiya kasoo qorto waxay leedahay walaalkay ma igu dhoofin karaa inaan ahay xaaskiisii macnaa been iyo dhoof uu qofkani ka been sheegayo maxaarimtiisii ori ku sheegayo. arrintaasoo hadda iskaga badan soomaalida arrintaasi sax maaha waa qalad waa xaraam waa waxaan banaanayn waa dariiqo xunoo qofku uu marayo oo gobonimadiisii iyo islaamnimadiisii labadaba ka been buu sheegaya. inuu walaashiisii maxaarimta ka mid aheed uu idhaahdo waa xaaskaygi sidaana gaalu wax kaga doono waa laba ceebood. islaamkiina dhib iyo eed buu usoo duway naftiisiina waa ku xadgudbay. marka dariiqada noocaasa marka horeba wadan gaal sabab la-aan sabab sharci iyadoonay jirin in la tagaaba xaraam ahayd beentana inuu kusii darayna kasii dar walaashiina uu ku sheegay ooridiisi waa 3 dambi oo isa saaran towbad baa waajiba iyo dadku inay iska daayaan. xamda diinsoor bay kasoo qorto waxay leedahay ninkaygu salaadii buu diiday aniguna galmada ma u diidaa? maya ha u diidine laakiin waani ilaahay baa wuxuu la hadlay ummadda islaamka oo waxau leeya yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara naftiin iyo ehelkiina naarka nabadgeliya. mar kale ilaahay wuxu uhi wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha adiguna ku adkow ehelkaagana salaada amar. ehelkaagii u muhiimsanaa weeye ninka waani oo sasab sida marka aada wax ka doonaysaba aada u sasabato iminkana salaada ilaahay ku sasab oo ku muslax waa laga yaabaa markaa inuu ku aqbalo oo halkaa ilaahay khayr weyn uu kaaga qoro dacwadda aada fidisay. cabdi ibraahim muqdisho kasoo qoro waxa uu leeyahay xaaskayga waxaanu isla garanay markii aan guursaday inay iska joogto xaafadooda ama reerkooda la joogto oo waktigaan u baahduun ay ii timaado biilkeedana halkaa aan ku siiyo. ma balaayaa jirta? may wax balaahay ma jiraan. labada qof wixii ay isku afkarteen wax dhiba ma laha kol haddii inay kuusoo isguursibaa macnat labada qof way isguursadeen kana wuu soo guuray kana wuu soo guuro meel bay isla degeen baahe. marka haddii sidan ku kala raali tihiin dhib ma leh xaqeedana sii xaqaagana way ku siin halka isla garataanna hawshiina idinku wadan. waxaa muhiimahun raali noqosho iyo isfaham wanaagsan. وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.